shirkan jaraa'id ay isugu yimaadeen odayaasha degmada Wanlaweyn ayaa jawaab kulul kaga bixiyeen hadal ka soo yaray Senator Naciimo Ibrahim oo ka tirsan xildhibaanada golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. Shalay ay xilli ay shir jaraa'id ku qabatay gurigeeda kuna sheegtay in maleeshiyada macawisle ay ciidamada dawladda ku laayeen Kabeerig. Ayay shirkan jaraa'id ay odayaasha isugu yimaadeen ayaa waxay ku sheegeen Senator Naciimo ka soo yaray hadal lidku ah dowladnimada Soomaaliya ayna u eexatay dhinaca qabyaaladda. sidoo kale odayaasha ayaa faahfaahiyay sababta ka dambeysay in ciidamada ka howlgalan Kabeerig iyo Aqbir Weyne iyo goobaha la midka ah. waxayna sheegeen habeenkii Talaadada ee dad xoolo dhaqato ay kooxo isbaarale ku dileen labana ay dhaawaceen subaxdii markii ciidamadu tageen ay la dagaalameen kooxo isbaarada dhigtay. sidoo kale odayaasha ayaa sheegay in hadalka Senator Naciimo ay adkayga xun yihiin waxayna ammaan u jeediyeen ciidamada dawladda kuna bogaadiyeen sida ay u guteen waajibaadkooda. kan jaraa'id waan qabanay naagtan sanatarada oo xildhibaan qaran iska tilmaamaaso warku iibidi jawaabtiis iyo inta soo fadheen unni gaarataytaa beel un isgalni iyo unni way ki ballangnay in oo 9 oday isku biyo oo markaasay taa lankii usoo naftirshii hegjay dib ku dhiyaan talaab lagu qaado isbaariyana la qaado nimanka la dagaalami way boo isbaaristiyaal oo dhibaatooyeen niman xoolaaley ah oo xoolo la jiraan laba qofna ku dhaaba xun ayiin qofna ku dileen iyo isbaaradii liinkasay isbaaradaasi tawlil dagaalami ciidamada wala ay ambaarooyaaso naagtaasay taa aad iyo ku xunna ciidamadan ang mahadnagaana dawladdan ang mahadnagaana maadaama oo dawladda oo emergency biyan isbaarado inta ku qaado isbaaradii iyo liinkasay nimanka la dagaalami isbaaradaas la kala dagaalami meel ay xorooyaayna oo i sheegaytina walaal ku xorooyaa ma iin ayna lagu xorooyo ayna liin xorooyo qaab oo gooni ah macaawisley wal jirma isbaaristiyaal way wal macaawisley dhahaa meel roogan ma jiro waxaan cadeynaynaa in maaragtay habeenkii Talaadada in laga dilay 3 qofood oo laba la dhaawacay midna laga dilay baadiya xooley dad dhacayo ayay hadana loo sii hiilinaya isbaaran la dhiganaya horta sanatarka waxaan ka codsanaynaa inuu Soomaali noqday inuu qabiil noqday inuu noo kala saaro markii ugu horeysa hadii nin Soomaaliyeed ama gabar Soomaaliyeed ay tahay Soomaalinimada hala soo cadeyso markii ugu horeysa waxaan ka xunnahay ayaan dare adigoo ummadda Soomaaliyeed mas'uulka ah inaad tiraadid hadana ciidamada aad ku cambaaraysid dad u taagan habeen maalin inay isbaar dhigtaan ee ummadana ku galaaftaan wadooyinka waxa ayaan dare adigoo mataqaana ummadda Soomaaliyeed wakiilka aad u safatid hadana qabiil waxaan aad ugu xunnahay mataqaana in adinka aad ijaafaysatiin ciidanka qaranka Soomaaliyeed maadaama anaga aan ku ballanno anaga igaal jecel isha caleemad oo ku ballanno 9 aan ku ballanno nin alla ninkii dib geysto in markaas wax laga qabto haddii anaga dulmiga anaga aan geysan lahayn anaguna qaban lahaa maanta adaa habeenimo guureyso xooley dhacday xooleydiya loo tagay adiga xabada bilawday sideena ku socotaa haddii anaga aan xoog dalka anaga oo dhaxdeena ku jiro anaga aan dulno anaga buana qaban lahayd ayaan darada oo mataqaana dadka gaal jecel oo afkaartooda ka duwan oo ummadda Soomaaliyeedna masilayaan marno u janjeeraan qabaa'ilka marna masili kartiin iska dhaafa sanatarnimada iska dhiga dhulka maadaama mas'uul aad dadka oo dhan waa u dhaxaysa hadana dada u safat taasna waa ayaan daro ciidamada xooga wixii ka dhintayna Allah u naxariisto intii dhaawacantayna Ilaahay mataqaana boogday Allah ka mariyo ciidamada marxaati ka intay baxeen habeenimo hoolaaley oo masaakiin ah oo waxa waaye jiifa iyaga waxa waaye quutraadis hoolahooda hoos kaga jira intii ay u baxeen burcad macaawisleyda la sheegay way burcad intay baxeen hoolaaleydii wax laayeen oo dhaawaceen iyo wax kala ka dhigeen argagax giliyeed dada dhintay dada dhaawacan saxun u dhaawacan dadkaas dhanna meesha u yaala oo waxa waaye wada hadalkii iyo xabad joojintii saasay u buriyeen reer Gaaljeel marka waxa waaye dawladda ciidanka waa mahadsan yahay waajibkii aan ku ballanay aan ku ogeynay fushideen hooshooda cidii xad gudubtu waxa la isku ogaa in tilaabo sharci laga qaadayo aysan qabiil aysan ahayn shakhsinimadiis uu yahay ninkii dambe galabsada hadda marka waxa dhacday ciidankii hooshooda markay u kaceen iyaga xabad lagu bilaabay oo waxa waaye qabiil noqday dadkii
burcadkooda qabiil yahay dadka la xuraynaayeen hoolaaleydii deegaanka tahay oo samatarta sheegayso dhulkooday xuraysanayaan dadka laga xuraynaayo dadkii deegaanka hoolaaleydu ay wax laga xuraynaayo taas waxa waaye jawaabteeda ciidanka ka bixiyay. ugu dambeyntii odayaasha ayaa sheegay in ragga la laayay aanay ahayn maleeshiyo beelad bale ay ahaayeen rag isbaaroley ah waxayna dowladda ka codsayeen arrintan sidii ugu dhaqsiyaa badan wax uga qabato waxayna odayaasha baaq u direen odayaasha ay heshiiska kala seexdeen inay gogol u fadhiyaan oo ay sugayaan gabarta walaalaan oo aqalka sare ka jirto way dhatay dagaal maleeshiyo beeleed iyo la dhamaayay maleeshiyo beeleed la dhamaayay ma jiro ma aawisleyna ma dagaalku way ku bilaawaday shan aleem iyo gaajeel markii wada fadheedeen ilaahu marqaati adii ku eed la ka dhahay ani hay taliya guutida roogi kii ciidamada danam iyo roogi taliya saldhiga roogi wafdi badan roogi marka balantiya luunku bihi shan aleem way balanta luunku bahay dad masaakiin hoolaley hoolaasho daajiisadaayaan iyo hal qof lagu dili lamana dhaawac halis way marka shan aleemo way xasuusatay sagaal qof inii gaajeel lagu yiraaw ama sagaal qof shan aleem lagu yiraaw ciidamada dawladda walaagii marqaati luunku dhiki dadka isbaariyaalka dhikidoo hayaan iyo waajibaadka fulideen marka way la ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed walaa hadii lacala wal suuq dhimida naxariis jana Allah hajeeyo hadii walaaba ay boogtiyo ilaahay inday yeelina marka qofka aqalka sare wara moo hayto baawisley ilatu baawisley wala dhahaw ma jiro meelu tuugu ku koyti hig shabeelle inta roogti tuugada sidii uu isku reebo lahayn falshe ka saane dawladda way ku codsadaane sida dhaqsiyaha badan inay walnu ku qabato madaxweynaha Farmaajo iyo Xasan Ala Khayre way siin lana dastuurka Soomaali walaagi ki qoranyo albaabi inay qofdaas ay taw meelaha isku dooradi meelaha ku socote unan daafeeda roogni ciidamadan dawladda jecelna hadda way aragoynaa inay soo faayo hay shan aleema dhan guuro hay way guuroyte bangishe oo duurka kiyaalo hoolaasho wadate meelaha dego hayaan kii hadda koo bilaaway la dili haan kala dareeraan in la dilaaw diidaase marka ciidamada dawladda way ku codsadaane inay walni la qabadaan leeyahay shaqeeyaan tiidiye kale walaaloogaana gaajeelka sagaalka qof ahaayeen nin dili dilkaan inay meel ka sheegan halaan loo dili lama dhaawaan loo eta hoolaan oo dhamaadeen walaal dhiyaalkaan gogolaa fidiyeen gogolaa ka suweyne shaqada dawladda baabshe goonuw tii shan aleem baabshe goonuw Cabdi Qani Maxamed Xasan warbaahinta Koonfur Galbeed Walawey